بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داوديال كسو دوادا برنامجكني فلنقينتا عيارها قodobada barnaamijkeena caawaad ku maqli doontaan waxa kamida Cristiano Ronaldo oo kaligiis ka fiican kooxaha Real Madrid iyo Barcelona maxaa dhacay Liverpool oo doonaysa inay heshiis cusub ka saxiixato Alisson Becker iyo waliba Virgil van Dijk Paul Pogba oo xidigaha Manchester United ku wargeliyay mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Old Trafford ku dheesha Liverpool oo loo sheegay qaabka uu Mohamed Salah kooxdiisa ugu caawin karo saxiixa weeraryahanka Kylian Mbappe Jose Mourinho oo qiray inay xitaa FA aysan waxba ka qaban karin Jurgen Klopp Barcelona oo la soo wareegaysa bedelka Osama Dembele iyadoo suuqa kala iibsiga uu xiran yahay sidee ayay ku dhici kartaa arinkaasi Burnley oo ku maadeysatay macallin Mikel Arteta kadib markii uu cawska garoonka ku eedeeyay barbarihii Arsenal ay la gashay musiibo kale oo soo hooyatay Barcelona Osama Dembele oo aanan ciyaari doonin inta ka harsan xilli ciyaareedkan sida Luis Alberto Suarez jamaahiirta Barcelona oo war farxad leh helay una soo yeeray xidig muhiim ah oo kooxdaasi ku soo noqonay saddex ka tirsan ciyaartoyda Manchester United oo cilaaj ku qaadanaya Dubai iyagoo ku jira fasaxa qaboobaha waa kuwee barnaamijka ayaad ku maqli doontaa qodobadaas iyo qodobada nagu soo kor ayaad ku maqli doontaa intuu barnaamijkeena hawada ku jiro waa anigoo Adalmar Cabdidiiriye ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni ciyaaraha aynu ku bilownay ma banaana in xidig kaliya la barbar dhigo koox maadaama ayna inta badan aysan dhicin kaliya inuu ka fiicnaado kooxdan xidig laakiin Cristiano Ronaldo ayaa sanadkan ka fiicnaaday laba koox ee Cristiano Ronaldo kaligiis ka fiican yahay shanta horyaal ee ugu waaweyn ayaa kamida kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub kuwaas oo kala ah Real Madrid iyo Barcelona Cristiano Ronaldo ayaa si cajiib ah ku bilowday xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay 9 gool horyaal Serie A xilli ciyaareedkan tan iyo bilowgii sanada 2020 Ronaldo ayaa ciyaaray 5 kulan isagoo dhaliyay 9 gool oo horyaalka Serie A Cristiano Ronaldo ayaa sidaas daraadeed goolal badan kooxaha kubadda cagta Real Madrid kuwaas oo horyaalka ka dhaliyay 7 gool sidoo kalena Barcelona ayaa horyaalka ka dhalisay 5 gool iyadoo ka dambaysa Cristiano Ronaldo oo 9 gool dhaliyay 5 kulan kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay muhiimadeeda siin doonto haatan inay heshiis ka saxiixato xidigaha Virgil van Dijk iyo Alisson Becker xilli ay Red Devils haatan 22 dhibcood ku hogaaminayso horyaalka Premier League waxaa la xiriirinayaa inay Reds keeni doonto xidigo magacyo waaweyn keeni kara kooxda si kastaba ha ahaatee wargeyska Independent ayaa sheegay in muhiimada ugu horeysa ee Jurgen Klopp haatan uu heshiis cusub uu ka saxiixay xidigaha Virgil van Dijk iyo Alisson Becker ay tahay labada xidig ee Virgil van Dijk iyo Alisson Becker ayaa kooxda kula jira heshiis dhici doona xilli ciyaareedka 2023 iyo 24 laakiin waxa uu doonayaa inuu heshiis cusub ka saxiixo xidigahaasi labada xidig ayaa la sheegay inay diyaar u yihiin mustaqbalkooda u hibeeyaan kooxda Reds oo ay u arkaan kuwa kamid ah kooxaha adduunka ugu fiican sanadaha soo socda
xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa lagu waramayaa inuu xidigaha kooxdiisa Manchester United u sheegay inuu weli doonayo inuu isaga tago Old Trafford sida ay sheegayaan wararka. Xidiga reer France ayaa xagaagii oo dhan lala xiriirinayay inuu isaga tagayo kooxda Manchester United iyadoo lala xiriirinayo Juventus iyo Real Madrid, laakiin Manchester United ayaa diiday arrinkaasi. Manchester United ayaa Paul Pogba dib uga soo saxiixatay Juventus xagaagii 2016 iyadoo ay kooxda ku raadinaysay inay mar kale ku guuleysato horyaalka Premier League. Si kastaba ha ahaatee 4 sanadood kadib xidiga ayaan qaab ciyaareed fiican aan la filaynin ku soo bandhigay Old Trafford. Wargeyska Manchester Evening News ayaa sheegay in Paul Pogba xidigani kooxda Manchester United u qiray inuu doonayo inuu isaga tago Manchester United, waliba u sheegay xidigaha ay isugu dhow yihiin xilli ciyaareedkan uu doonayo inuu isaga tago. Xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Charlie Adam ayaa ka hadlay suurtagalnimada ay Liverpool la soo saxiixan karto xidiga kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Faransiiska Kylian Mbappé xagaaga. Kylian Mbappé ayaa lala xiriirinayaa kooxda Liverpool xilli uu xidiga laftiisa qiray jaceyl iyo taageero uu qabo kooxda Liverpool, laakiin ku biiristiisa ayaa u muuqata mid adag marka loo eego in xidigani lacag badan ay ku dushiisa ay saaran tahay. Laakiin xidiga reer Scotland ee Charlie Adam ayaa kooxdiisii hore u sheegay wada ay ku heli karaan xidiga Kylian Mbappé marka la gaaro xagaaga. Charlie Adam ayaa sheegay in Reds iska iibiso xidiga Mohamed Salah si ay hesho xidiga reer France ee Kylian Mbappé. Charlie Adam oo la hadlaya BBC Sport ayaa yiri waxa uu maleynayaa in aad iska iibisaan Roberto Firmino sababtoo ah waxa uu xaqeexa qaab ciyaareedka kooxda. Mohamed Salah iyo Sadio Mane laftoodu saameyn ayay ku leeyihiin qaab ciyaareedka Liverpool sanadihii la soo dhaafay, laakiin fikir ahaantay haddii Liverpool ay iska iibiso Mohamed Salah waxay u dhaqaaqi kartaa Kylian Mbappé, ayuu Charlie Adam u sheegay wargeyska. Jose Mourinho ayaa weerar dadban ku qaaday Jurgen Klopp iyo xiriirka kubadda cagta Ingiriiska kadib markii tababaraha reer Germany iyo kooxdiisa koowaad ay diideen inay ciyaaraan kulanka ku celiska wareega afraad ee FA ee caawa la ciyaarayo, iyadoo Mourinho uu yiri wuxuu raba ayuu sameeyaa. Maadaama ay kulankii hore barbaro 2-2 soo galeen, Liverpool ayay qasab ku tahay inay ku noqoto inay ku celiyaan kulan ku celisa kooxda kubadda cagta ee Shrewsbury, laakiin Klopp ayaa diiday inuu baajiyo fasaxa uu siinayo ciyaartoydiisa. Waxa uuna kulanka caawa ku wareejiyay tababaraha kooxda da'yarada ee 23 sano jirada Michael Carrick. Liverpool waxa caawa sidoo kale kabtan u noqon doona Curtis Jones, taasoo ka dhigi doonta kabtanka da'yarada abid ee kooxda. Jurgen Klopp ayaa isbuucii la soo dhaafay ugu eedeeyay go'aankii maamulka FA oo ixtiraami waayay fasaxa ciyaartoyda loo qoondeeyay waqtigani. madaxa Shrewsbury ayaana aaminsan in go'aanka Klopp ay kooxda heerka saddexaad khasaarin doonto 500 kun oo gani. Mourinho ayaa haatan ka hadlay fikirkaasi ku aadan arintaasi isagoo weerar dadban ku qaaday tababaraha Liverpool, halka sidoo kale xiriirka kubadda cagta Ingiriiska uu ku eedeeyay inay ciqaabi waayeen Jurgen Klopp. Klopp waa Klopp, ayuu yiri Mourinho maanta ka hor kulankii ku celiska ee Tottenham habeen dambe la ciyaari doonto Southampton. Wuxuu rabo ayuu sameeyaa, wixii ay madaxda kooxdiisa doonaysana ayuu sameeyaa, ama wixii uu ogol yahay isaga. wixii sharciga ogol yahay ayuu sameeyaa, ama wixii uusan sharciga ogolayn wuxuu rabo ayuu isaga sameeyaa, waxbana lagama qaban karo, ayuu Jurgen Klopp ku yiri Jose Mourinho xilli si dadban uu weerarayay. Barcelona waxa mar kale ka maqnaan doona weeraryahanka reer France Ousmane Dembele kaasoo dhaawac halis ah soo gaaray. Weeraryahanka ayaa wajahaya dhaawac tobanaad tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray, waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaan doono muddo ka badan 5 bilood. Barcelona ayaa loo ogol yahay inay la soo wareegto bedelka inkastoo uu suuqa kala iibsiga xirmay, laakiin waxa hor yaala shuruudo dhowr ah. Shuruudaha waxa kamida ciyaaryahanka ay la soo wareegayso waa inuu ka ciyaaraa gudaha dalka Spain, lamana ogola in horyaalada waaweyn ay ka keensadaan ciyaaryahan kale. Barcelona
waxay haysataa 20 maalmood oo ka bilaabata maalinta dhaawaca uu dhacay lana xaqiijiyay inuu xidigani uu ka maqnaan doono kadib guddiga caafimaadka xiriirka ayaa 3 maalmood eegi doona codsiga kooxda kuna aadan la soo wareegitaanka bedelka ciyaaryahanka haddii codsigooda loo ogolaado Barcelona waxay haysataa 15 maalmood oo ay ku keensan karto ciyaaryahan cusub haddii Dembele uu ka soo kabsado ka hor waqtigii loo qabtay markaas looma ogolaan doono inuu dheelo inta ka dhaman xilli ciyaareedka isagoo sugi kara xilli ciyaareedka dambe Osama Dembele ayaa dhaawacyo ay wareejiyeen tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Borussia Dortmund Barcelona uu ku soo biiray wuxuuna noqonayaa xidigii labaad ee ka maqnaada Barcelona inta ka harsan xilli ciyaareedkan Luis Alberto Suarez oo isna qalliin lagu sameeyay dhawaan ayaa garoomada ka maqnaan doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan Barcelona ayaa la filayaa inay gudbin doonto codsiga kula soo wareegitaanka bedelka Dembele inkastoo uu xirmayo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haatanna uu xirmay Burnley ayaa ku maadeysatay Mikel Arteta kadib markii uu eedeeyay cawska garoonka Turf Moor barbarihii gool la'aantaha oo Arsenal la xadii la gashay Gunners ayaa ku guul dareysatay inay shabaqa ka soo taabato kooxda tababarasiin Dejal iyadoo Pierre-Emerick Aubameyang uu qasaariyay 2 fursadood oo gool loo fishay ciyaarta kadib Arteta ayaa dhererka cawska sabab uga dhigay in ay Arsenal awoodi weyso inay gool dhaliso isagoo yiri cawska garoonka ma ahayn mid caawinaya xaaladda garoonka ayaa aad u adkayd cawska ayaa aad ugu dheeraa ma aysan ahayn kuwa waraabiya sida iska cadna waxay ahayd xaaladan mid nagu adag kadib cawskaasi laakiin Burnley ayaa jawaab maadsiya ka siisay Arteta iyagoo sawirkoodii hore ee Twitterka ka dhigay caws aan wali la jarin waxayna sidoo kale soo dhigeen Twitterka muuqaal laga qaaday dhinaca garoonka ee Charlie Taylor uu kubadda xooga uga qaadanayay ee Mas'uud Ozil dhanka kale tababaraha Burnley Dejal ayaa eedeeyay ciyaartooyda Arsenal inay isturtureen intii ay socotay ciyaarta isagoo si ka jana uga hadlaya waxa uu yiri waa wax qurux badan in aad daawato dad isturturaya waa qayb kamid ah inay jecel yihiin ciyaartooyada kooxda kubadda cagta Arsenal isla wararka Barcelona ayaynu ku jirnaa kooxda Barcelona ayaa warbixin ay goor dhawey soo saartay waxay ku sheegtay in weeraryahankooda Osama Dembele inuu soo gaaray dhaawac halisa taasoo keeni doonta inuu garoomada ka maqnaado inta ka harsan xilli ciyaareedkan warbixinta ay Barcelona soo saartay waxay sidoo kale sheegeen in saacadaha soo socda go'aan laga gaari doono nooca daweynta oo qaadan doono xidigan reference si uu soo kabsado inkastoo haatan la ogeyn waxa uu xaalka noqon doono waxa hadana cad in tababara Setien uu waayi doono Dembele inta ka harsan xilli ciyaareedkani tababara Setien ayaa ka rajo qabay inuu soo laabto Osama Dembele kadib markii ay kooxda ku guul dareysatay in bishii Janaayo la soo iibsato weeraryahan cusub bedelna u ah Luis Alberto Suarez oo isagana garoomada ka maqnaan doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan isla markaana ay iibiyeen da'yarkoodii Carlos Perez iyo waliba Abil Rus dhaawaca soo gaaray Dembele waa isla meeshii uu ka dhaawacmay bilihii ugu dambeeyay waxa uuna tababarka dib ugu soo laabtay 26 bishii Janaayo diga lagu naanayso kaneecada ayaa ku jiray qaybtii ugu dambeysay ee soo kabashadiisa markii uu shalay isaga baxay tababarka kadib markii uu xanuun badan ka dareemay lugta midig waa dhaawicii 10aad ee soo gaara ciyaaryahanka reference tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla wili wararka Barcelona ayaynu ku jirnaa taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa war farxadeed ka helay qadka dhexe kooxdooda Arturo Vidal kaas oo loo baadinayay inuu qayb ka noqon doono kooxda kulanka ay booqanayso Athletic Bilbao ee Khamiista marka laga yimaado inuu seegay dhammaan 3 tababar ee ugu dambeeyay kooxdiisa Vidal ayaa si aan daal lahayn uga shaqeeyay jirdhiska ee kooxdiisa si uu hubaal uga dhigo soo kabashadiisa Vidal ayaa ah mid bixiya wax ka duwan xidigaha kale ee qadka dhexe ee Barcelona tababara Setien ayaana adeegsan kara marka ay kulamadu noqdaan kuwa awood iyo orod ku salaysan Arturo Vidal ayaa si gaar ahaaneed muhiimada ugu Barcelona u ah kulamka ay baxaysa ee martida u tahay maadaama
uu bixiyo awood jir ahaaneed iyo weliba loolan qadka dhexe ah oo aysan xidigaha kale. Kulanka San Mames oo ay booqanaysay Khamiista ayaa la filayaa inuu noqon doono mid aad u xoogan, iyadoo ay xusid mudan tahay in kulankoodii ugu horeeyay La Ligaha ay guuldarro 1-0 kala kulmeen gidooda. Haddii uu xidigan Real ku fashilmo inuu ka soo gaaro kulankan, Quique Setién ayaa adeegsan doona midkood Artur Melo iyo Ivan Rakitic oo hadda tan buuxda u ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Lucas Shaw, Jesse Lingard iyo Diego Dalot ayaa tababar bilaabay Dubai iyagoo ku jira fasaxa qabobaha, waxayna muuqataa kuwa doonaya inay si adag uga soo laabtaan ka hor inta aysan Red Devils dib ugu soo laaban qorshaha ay ugu dagaalamayaan booskooda. saddexdan ciyaartooy ayaa ka soo muuqday kulankii ugu dambeeyay oo ay barbaraha la galeen Wolves, waxayna heleen muddo yar oo fasaxa, balse waxay go'aansadeen inay ku safraan Dubai si ay tababar ugu sameeyaan. Lingard ayaa Instagram-ka soo dhigay muuqaal isagoo saaxiibadiisa kooxda oo jooga Nad Al Ahly Sport Complex. Xidiga Red Devils ayaa kulmi doona Sabtida, waxaana la aaminsan yahay inay u kulmi doonaan Marbella. Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyay inay ciyaartooydiisa heli doonaan isbuuc fasaxa ka hor inta aanan la bilaabin isku diyaarinta kulanka adag ee Chelsea ay la ciyaarayaan. Kastaba ha ahaatee, Red Devils waxay suuqii xirmay ee January ka heshay Bruno Fernandes iyo weliba Odion Ighalo oo la filayo inay kooxda ka garab ciyaarsiiyaan sida ay fasalka dambe uga qaybgelin lahaayeen koobka horyaalka Yurub ee loo yaqaano Champions League. waa hagaag daawadayaal, intaas ayuu ku egyahay barnaamijkii falanqaynta ciyaaraha. anigoo ah Dalmar Cabdi Diiriye. intaan kan mid la mid ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.